وكم أنتين سودوين تشرفت له وعنكم بالله بايا وانسلان ديرن إذن كجسلا مدحوين محمد عبد الله محمد فرماجو إيه بدون مثلا تيس رير بايدا بجناي سين سلامي نبدا هرقلا بريدة ايد يا ايد يا انكي بعد سنتين سيدة الصورة لي حين وينتين لا أربعين وجناي سين هلاوي إذن هلاوتنا إذن هلاوتنا غير كوفر قلبت صوماليا إذن قودي جرتين قوديوكي يالي سنكفر إذا مانتا غير كوفر قلبت إني سوريسن يا إنكوي ريدنا سوغال صور وانسوس آمو فده gurigi barwaaqadaay baydhaboy manabad baa baradii masakadoy baydhaboy manabad baa baryaan kala maqnayne baydhaboy manabad baa isha biyaha kulaliyo bardihii ku caanaay baydhaboy manabad baa bulsha nabadda jecelaay baydhaboy manabad baa waxaan u mahad celinayaa madaxweyne cabdicasiis lafta garan oo sida dowladnimada loo bilaabay in halkan laga oogo markii uu madaxweynaha noqday kadib waxaa halkan ka muuqata sida dowladnimada looga oogaayo koonfur galbeed gaar ahaan baydhabo waxaa ka muuqata sida la isugu soo dhaweynayo dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada iyo shacabka soomaaliyeed oo dhan madaxweynaha iyo guddoomiyuhuna waa ku mahadsan yihiin sida sharafta leh uga shaqeeyeen horumarka dalka iyo dowladnimada waxaa aasaas u ah wada shaqayn koonfur galbeedna waxay weligeed ahayd buddhigaha wada shaqaynta dadka iyo dowladda soomaaliyeed waa idinkaga mahad celinayaa waa mahadsantiin halkan waxaa hortayda ka muuqda mustaqbalka ummadda soomaaliyeed dhallinyaro soomaaliyeed oo aan sheegay waa saamiga ugu badan ee dadka iskale dadka soomaaliyeed maadaama ugu yaraan 75% shacabka soomaaliyeed ay yihiin dhallinyaro waa idin hambalyaynayaa sidaa isugu duubantihiin waa idin hambalyaynayaa sidaa dowladdiina u garab taagantihiin waa idin hambalyaynayaa hamuunta idinka muuqata iyo dowlad jacaylka halkan waxaan u nimid aniga iyo waftigaan hogaaminayo inaan la fariisano madaxda dowlad goboleedka koonfur galbeed oo ugu horeeya madaxweynihiinu kala hadalno baahiyada aad qabtaan ku bilaabno sidii hay-adihiina amniga loo xoojin lahaa dib u habeyn loogu samayn lahaa loo xoojin lahaa ciidankiina aanna ka shaqayn lahayn sida ugu dhaqsaha badan sida aan u fur lahayn jidka isku xidha xamar iyo baydhabo haddii ilaah yidhaahdo sidaad la socotaan dowladda federaalku waxay waayahan ku mashquulsanayd in la xoreeyo deegaano ka mid ah koonfur galbeed oo ay ugu horreysa shabeellada hoose waxaan madaxweynaha iyo dowlad goboleedka koonfur galbeed uga mahad celinayaa doorka mugale oo ay ka qaateen inay dib u xoreeyaan deegaanadaas oo aan rajeynayno mar dhow
madaxweyne cabdicasiis inuu u guuro magaalo madaxdiisii uuna halkaas ku shaqo gala haddii ilaa yidhaahdo halkan waxaa ka muuqda dad soomaaliyeed oo isku tashaday ka shaqeeyay amnigooda dhisanaya magaaladooda jecel dowladnimo dowladda waxaa laga rabaa inay garab istaagto sidaas daraaddeed ayaan waxaan soo kaxeeyey hay-adaha federaalka oo aan rabo inay idinkala shaqeeyaan caafimaadka waxbarashada dib u dhiska dalka amniga iyo sidii dhallinyaradan faraha badan ee halkan joogta shaqo loogu abuuri lahaa haddii ilaa yidhaahdo meel walba waan ku soo wareegay dalka soomaaliyeed mar walba oo dhib dhaco waxaa taagan oo isu soo baxa dhallinyaro soomaaliyeed mar walba oo dadka soomaaliyeed ay colays dareemaan waxaa soo istaaga haween iyo culummo soomaaliyeed mar walbuu dhib dhaco waxaa soo baxa soomaali tiraahdaa waxaan rabnaa soomaalinimadii waxaan meel iska dhignay oo aasnay qabyaaladii iyo qabiilkii qofka jooga koonfur galbeed iyo qofka xamar jooga iyo qofka dhuusamareeb jooga iyo qofka beledweyne jooga iyo qofka boosaaso jooga kulligood waa dad soomaaliyeed soomaalinimada ka dhexaysa qabyaaladna ma ogolin mana ku shaqayn doona qabyaalad reer baydhabana waxaan rabnaa inay hormuud ku noqdaan soomaalinimada waxaan rabaa inaan idiin sheego muddadii koobneed oo dawladdeenu jirtay waxaan la kulannay caqabado badan laakiin waxaan joognaa meel aan dhihi karno waxaa muuqda iftiin dawladeed iftiin dawladeed oo ay tusaale ka tahay isi soo baxa maanta aan ka aragnay garoonka baydhabo iyo isbartiimada baydhabo haddii qof soomaaliya uu shaki uga jiro dadka soomaaliyeed dawlad ma rabaan ku quus qaado isbartiimada baydhabaan hortaaganaha maanta haddii qof soomaaliyeed uu shaki uga jiro soomaaliya hore uma socotay kaana soo fiirso dadka halkan taagan maanta haddii qof soomaaliyeed uu ka walwalsan yahay ma soo noqonnay dalkii lala yaqaanay ma noqonaynaa sharafteenna ma soo celinaynaa kaalay ku quus qaado haddii uu shaki kaaga jiray baydhabana waa ku mahadsan tahay maanta waxaa muuqata dawlad soomaaliyeed oo go-aanka loo gaarin oo iyadu gaarta oo aan iyadu kala tashan cid idin mateli lahayd laakiin iyadu idin matasha oo aan xoolihiinna idinka xadin ama idinka musuqmaaqsan laakiin idin dhaqaalayso oo la xisaabtanta cid walba oo dawladda u shaqaysa iyo dunida inteeda kale oo dhaqaalihiinni dib habeen idinkugu samaysay oo u dhow in daynta laydinka cafiyo oo ciidankiinni dib habeen idinkugu samaysay oo u dhow in dhammaan deegaanada cadowga haysta laga xoreeyo oo idin dejisay siyaasad midaysan oo mustaqbalka la gaarsiin doonto wiilasha iyo gabdhaha halkan jooga iyagu inay noqdaan kuwii dalka soomaaliyeed go-aanka ka gaari lahay masiirka uu yeelanayo iyagu codka dhiiban doono jid dheer baan soo marnay godad iyo buurale mugdi ah iyo gudcur qaybtii iftiinkaan u soo baxnay laakiin in la sii adkaystaa la rabaa ogow culays walba oo dawladnimada loo maro macnaheedu waxay tahay inaan gacanta idiin gelinno dawlad ka dhib yar midda annagu hadda aan joogno culays walba oo la maro waxay tahay in idinkii jidka aad mari lahaydeen la idiin siin xaaro culays walba oon marno macnaheedu waxay tahay inaan rabno soomaaliya ka duwan soomaaliyada maanta aan joogno culays walba oon marno waxay tahay inaan raadinayno idinku inaad heshaan mustaqbalka cabdicasiis iyo aniga iyo guddoomiye waan hellay mid ka wanaagsan laakiin taasi si ay u dhacdo dawladnimada soomaaliyeed iyo horumarkeeda dhexdhexaad kama noqon kartaan ma daawan kartaan idinkoo u kala jeeda qalad iyo sax ma daawan kartaan haddii dawladnimadiina laydinka qalleeciyo ma ilaashanaysaan dawladnimadiina ma ka shaqaynaysaan idinku ma ka shaqaynaysaan sidii aad idinku awoodda mustaqbalka ula wareegi lahaydeen anigoo la geli doono wadahadal ballaaran beesha caalamka oo dhan oo maanta halkan isugu imaanaysa oo baydhaba ay soo dhoweyn doonto sida aniga ii soo dhoweysay madaxweynihiina kala hadli doonaa waxyaabaha
uu rabo inay dowladda federaalku ku caawiso aan aaminsanahay inaan shaqooyin badan halkan ka qabanayno waxaan ku bilaabaynaa marka hore ballanqaadka ugu horreeya oo ah in dhallinyarada reer baydhabo halkan joogtay ku farxaan in laga bilaabo maalinta beriyaha dowladda federaalku ay ka shaqayn doonto in laydiin dhisa garoonkan waa mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu